waa mahadsan tahay sandheere. dabcan wadahadalka intiisa badan maanta oo khamiisa ayuu dhici doonaa. habeenkii u horreeyey labada madaxweyne waa is arkeen, cashana way yeesheen, waana la isgacan qaaday. laakiin wadahadalka intiisa badan maanta oo khamiis u dhici doonaa. tan ugu muhiimsan oo ajendaha dabcan oo shirkii hore oo Hong Kong uu ka dhacay uu daba socdo waxa weeye arrinta ku saabsan nuclearka ee waqooyiga Kuuriya, oo macnaheedu yahay in la doonayo in North Korea ay iska dayso ama ka takhalusto hubkeeda nuclearka. ajendaha ugu weyn waa kaas. dabcan labada madaxweyne nin walba dan gooni u leeyahay. kiimka North Korea danta ugu weyn waxa weeye dabcan waa wadan yar weeye, inuu isku dhereriyo madaxweynaha dalka adduunka ugu awood badan markay dhaqaale iyo military noqoto. waa arrin ka gadmaysa shacbigiisii. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump hadda wuxuu leeyahay madaxweynaha keliya waxaan ahay markii labaad la kulmay madaxweynaha North Korea oo arrintaas wadahadal kala galay. taas laftigeedu wuxuu u arkaa inay guul tahay. rajada laga qabo in heshiis laga gaaro hubka nuclearka ee waqooyiga Korea runtii ma uu badna. madaxweynaha mar la weydiiyey waxa uu yidhi degdeg naguma jiro, waa shirkii labaad oo aan yeelanay, shirar kaleano arrintan ka yeelan doonaa. laakiin isu soo dhowaanshaha ayay muhiim u tahay. meesha lagu qabtay xataa waa muhiim, oo waxaad moodaa Donald Trump hadda inuu isticmaalayo inuu kusoo jiito waqooyiga Korea dhinac dhaqaale, inuu ka tuso in danu ugu jirto hubka nuclearka inay iska dhigaan. waan gartay. dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya yidhaahdaa in madaxweyne uu la kulmo madaxweyne kale, gaar ahaan weliba marka ay labada dal cadaawad aada u dheer ay ka dhaxayso, sidaa fududee degdega ah ma habboonayna waxay ahayd in horta la dhiraandhiriyo oo dad maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ka socda ay maaragtay wadaxaajood galaan. marka wixii la diyaariyo uun ay madaxdu inay saragtay ahayd. arrintaa see looga arkaa caalamka intiisa kale? wallahi caalamka intiisa kale dabcan waxaa la wada garowsan yahay Donald Trump inuusan ahayn una dhaqmin madaxweynayaashii hore oo la arki jiray, ama Mareykanka ha noqoto caalamka intiisa kale ha noqoto. waxyaalo badan oo lagu yaqaanay madaxdii hore ama madaxda caalamka ayuu hore u jabiyey. marka taas mar walba la yaab ma noqonayso. sida isagu uu rabo unbuu markaasi wax u sameeyaa. dabcan wuxuu isagu aaminsan yahay in madaxda haddaad marar badan la kulantid inaad isu soo dhawaanaysaan, inaad saaxiibaysaan, in markaa labada dal iyo siyaasadahooduna isu soo dhawaanayaan buu aaminsan yahay. wuxuu hadda madaxweynaha waqooyiga Korea ku leeyahay haddii hubkaad iska dhigtoo kale, Vietnam dagaal culus baana dhex maray, dad badan baa isaga kaaya baaba-ay. haddana goobtana lagu qabanaya, dhaqaalahoodu korka cirkaasuu hadda marayaa, dhaqaalo fiican bay yeelanayaan. ama koonfurta Korea laftigeeda ku dayo, ama Vietnam ama China xataa ay darisiin ku dayo leeyahay, oo dhanka dhaqaalahood moodaa hadda inuu ka tusayo. marka madaxweynahana Donald Trump laftigiisa waxay kusoo aadaysaa xilli caqabado ballaaran iyo dhibaatooyin ay ka haystaan dalka gudihiisa. qarankiisii hore ama looyarkiisii hore Michael Cohen aqalka wakiiladu khudba ka akhriya, dabcan isagoo hadalla kulkulul u jeediyey madaxweynaha oo ku yiri waa cunsuri, waa beenaale, waa qaacin. marka waxaad moodaa shirkan oo kale inuu xataa kasii jeedinayo dhibaatooyinka wadanka gudihiisa ka haysta. waan gartay. dalka Australia ood adigu joogtid dabcan dhinaca iyo qaaradda Asia kaaga dhow yahay marka la eego dhinaca isku dhowaanshaha khariidada amaba dhulka. waxaa la yidhaahdaa Kuuriyada waqooyi gantaaladeedu way soo gaadhayaan Australia. sidoo kale Australia waxay xulufo dhow yihiin dalka Mareykanka. marka sidee looga arkaa dalka Australia heshiiskan laga yaabo inuu dhex maro Mareykanka iyo Kuuriyada waqooyi? wallahi Australia aad bay u danaynaysaa, oo dabcan ma rabto gacankaas Kuuriya inay noqoto meel hub nuclear leh. gantaalihii uu tijaabiyey ay North Korea ama waqooyiga Korea tijaabisay September 2017 oo ah gantaalaha ridada dheer oo qaaradaha isaga gudba oo loo yaqaano intercontinental ballistic missileska, walaac weyn bay ku abuureen Australia. oo haddii gantaalahaas ay sax noqdaan in waqooyiga Korea ay haysato dalalka ay soo gaaraysay Australia ka mid tahay. marka Australia il weyn bay ku haysaa, gobolkay ka mid tahay. marka laga reebo Japan iyo koonfurta Korea oo waqooyiga Korea ku dhegan, Australia waxaa ka mid tahay dalalka kale oo ugu muhiimsan oo il gaara ku haya, aadna u danaynaya in gacanka Korea uu noqdo meel ka caagan hubka nuclearka. marka aad baa isha loogu hayaa. waana dal sidaas sheegtay xulafo la Mareykanka aada ugu dhow,
dagaalkii labaad kala qayb galay, gobolkan kala qayb galay, saaxiibo dhowna ah. Marka aad baa shirkan loo hayaa. Hadda waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa in haddii wax kale aysan kasoo bixin xataa in saaad ogtahay dagaalka Kuuriya markii uu dhamaaday xabad joojin unbaa lagu joogaaye heshiis rasmiya lama kala saxiixan. Marka waxaa laga yaabaa in Hanoi hadda uu kasoo baxo oo heshiis rasmiya halkaas lagu kala saxiixdo. Macnaheedu maaha in ama hubkii nuclearka uu meesha ka dhamaaday ama wax siyaasada weyn isbedelayaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay iska arrin symboliga noqoto oo bilow ah oo labada dal iyo guud ahaan Maraykanka iyo inta kaloo danaynaysaba arrin soo dhaweyn leh bay ogtaa. Weliba koonfurta Kuuriya aad bay usoo dhaweynaysaaba laleeyahay haddii arrintaas ay dhacdo oo heshiis laga gaaro dagaalkii dhacay sanado badan.